anigoo naftay hayso oo yaaban ayuu nin kaloo da'dana laba jeer iga weyn meeshii soo fadhiistay waa ka soo jeediyey harbalow ayo goormay soo dhacaysaa marka anigu waxaan moodayaa in qasabad biyaha ay weydiinayo dabeetana maasaan ku idhi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دغيستيال meel kasta oo codkaygu idinka soo gaarayo kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii idinka iman jiray rugta ururinta suugaanta iyo suugaalka ee Qalinsoor toddobaadkan dhageystayaal waa qaybtii labaad ee wareysigii suugaaneed ee aan la yeeshay abwaan maxamed xuseen jaamac oo xikmaawi loo garanayo yahay waxaana wareysigu uu inooga sii socon doonaa halkii hore uu inoogu joogay waxa maxamed oo jirta iyaduna maaso runtii shakhsiyan an aad u jecelahay maaragtay habdhiceeda iyo badda ay ka samaysan tahay oo runtii ku saabsanayd dhinaca dhaqanka way jirtay tixda waxaan ka xasuustaa adoo romantic ayaad ruuxantay Roland Mareerina wala tixdaas hadii ayadana waad mahadsantahay mawlidow waxaan macalinka ahaa mid kamid ah dugsiyada sare wadanka oo imika qaybta wacyigelinta aan u qaabilsanay inaan yaro arday oo fontriyan qabtay habsan baan ku qabto laga joog baan ku yiri xalay ma xalay biyo dhaaminaysay halkeed muxuu ahaa ku habsaanta markaasuu yiri maye xalay baan laga badiyay oo yaa ka badiyay maxafidin xafad kala islaysay maye sir walahan hakradayo casaan laba casaan la siiyo waan fahmi waay sababtana waan la yaabo waxa ka joogtay baan ku yiri halkan aan joogay goolba marka waxa arkay inuu ruux mayaan arko tamana taaban kartid waa nin kula dagaalamaya moogtay marka waxaan ku yiri bal waxaad samaysaa waan ku sii deynayaa muxuu ahaa ninkani wax buu akhriyaa su'aal baan ku weydiinayaa khulafaa raashidiintii ii sheeg baan ku yiri mujaahidiintii diinta islaamka halka soo gaarsiisay dabayshu may sidine kelmadda mujaahidin ma isticmaalay ii sheeg baan ku intay ahaayeen magacadoodii waan ku sii deynayaa mujaahidiintii waan garanaya haye siida waa ka bilaabay mujaahidiinta wuxuu mooday qoladii asal mugaras lixle ina koodbuur ina xaashi maxamed cali ina bixi waa halka ka galay waa ku khayraad ku sawiran waaniga saaw eegay waanta waaniga buugiisan soo kan waa ayaan ku Roland mas'uul macallin Roland muxuu ahaa dahay Roland bow mas'uuliyadda banka u taalaadii boqol loo qaybiyo hadii qayb leeyna siiyo itiraafuu soo tirsan Soomaaliland oo waa ka khulafadina garan waayay tadarbaaxan uga dhigay marka waxaan ku yiri warqad liba ragaysa u raaci noqdo ruuxduna digriga ku raali taho inaad raaci keento ayaa la rabay reeriyo ubad baa ku raad gurayo rugtii adagtaa la raadinaye ramaaska yar bacagtu la ruqe raxmaanka allah ku raasiqayo ninkii ragan baa rafaad ka baxe raab iyo muusig baad u reedi taho suwaalkii rifto hoos baad u rido waalidkii ku rabeeyay rubad goysay waalidkii ku rabeeyay rubad goysay raamaad la baxdo jimba ku rartay adoo rooma tagin ayaad ruuxantay waa Roland bareerihiina Roland bareerihiina waa runtii tix ka turjumaysa waciga dhalinyarada waqtigan ku sugan yihiin oo isagoo halkan joogo dhakada ka hayada ka qaar isku dilay oo aan kariyo marka mawlido mid kala ka sii dartay taa anigoo dhalinyaradii la yaaban ayaa halkan ka inta sideeda beelka wadaan baan mid Ismaaciil leeyahay soo raacna meel baan fadhiisana meesha nimo waaweyn baa fadhiismaan lahayn ciyaar iyo waxa marka ku ciyaar bay daawan jireen marka aniga dibtayduba ilaahay deeguma qabtay hadii lagu ciyaar iyo filin daawo un baa mawlidow igu sii daran iyo ciyaar daawo iyo inankii baa meesha soo fadhiisana waa la is haystaa ciyaartii kala hore tii saddexaad adigu hebel ma soo gaaraysa waa nimo waaweyn aniga mar ma hebel ma booyaani aniga kooxda misan kula kooxda maxay ahayn waa qolo wahalkii تمام واي ما حتشتري واتش وحي ما فهم واي ninkii baan marba soo jeediya meesha moobila ayaa loo sharad baa la kala dhiganaya mid waa ciyaaro hore mid waa mid la sugayo waa la yaab ninkana waan wada soconaa ninkii baan marba soo jeediya wuxuu go'aan waarde maxaa leedahay maad hawsha asiga waxa lagu keenin tahay meena wada hadeen wada socon waxaan meesha ka socday maadarkiin biguuri ta qolo raac anigoo naftay hayso oo yaaban ayuu nin kale da'dana laba jeer iga weyn meesha soo fadhiistay ninkii bay soo jeediya anigoo hiligo ila dad idan sheekaysan aan doonayaa waa ka soo jeediyay harbalow ayo goormay soo dhacaysaa marka anigu waxaan moodayaa in qasabad biyaha ay weydiinayo dabeetana maasaan ku yiri tani anaga noobaba soo dhacday anaga hadalka noo soo dhacay xilligeedii soo dhici jirtay nimankiina way sukaay maqlayaan nimankii ruuxan ku hadlaya caynkan martaba walbad baad gashay ninkan la hadlay
mar dambe abu markuu ogaaday inaan biyo u sheegay abu anigi waxa ninkan caankan dawaqsan ana markii aan ogaaday inuu ciyaari weydiinaya ma 3 jeer jibaaran bas yaxanaaqayo ciyaar bi weydiinay kabaan tiri waxaan idhi Kamaal oo kal hore wiilashii aan ka cabanay aan ku qowdhamay barag bay igaga kaar weynay majlisyada cabdo lagu kulmo ee lagu kifaaxayo koonaha istaagtaba dibad kala kulmaysaayo kax waxaan ka joognaa ciyaarka hadalkeedii baan kax waxaan ka joognaa ciyaarka hadalkeedii ku soco iyo ku laad iyo wad bay ku hurda seegeen ma kasbu u riday maxaa kaarti lagu siiyay ya cadada ka noqotaan xalay koorno loo dhigay baan ninka muu arkayni xagaas uu sii jeeday dhaaf buu isla ka ta warnima kuwa arkayn kuna aqoon meel kula joogin oo dhaqana ku keenin oo diina kula sheegan oo kiniisad laga maamulo kuugu nacabuunka waxaad ku taageeraysaana waa kaskaabnimo war kalaamkii ilaahay adan weer ka kicinaynin oo kala aqoon culimada iyo kubaradii diinta oo kaalintaadii dayacay ka hay barinay war karbaashka iyo heeriyada maxaa gurada ka saaray hawlahan ayaa ku dirsaday aad la kabaraado bal maxaa adiga kaaga cabahadul kuwa kooway baan waa Kristan Rolando oo kuma buu qarinay man tashabaha qowma foominhum waa Kristan Rolando oo kuma buu qarinay meeshiguna xaquu kaaga yimi way isagoo kale war miyuu ku dhigmaa islaam kaamilaan hayban afartan intaan soo kamilay koora Muusa markii aanu ku galay dhibtay ugu kubaynaysay ma korxaadsigii baan sharaxa kuugu kala saar inta aan ku qowdhamay miya sidii qaasin ugu koobay wax badan baan fariimaha kasmaal kaaga soo diray kana hooy qaar horaba way kugu maqnaayeen waxaan rag koobka kala qaadayay kaalinta u heelan ee Yurub ka boodboodaya kuma yaqaanaan haday ku ogyihiin sunbaabay ku kabilaay ee hadba kaash khamaar uu ku helay koomaha u galinay kaariyoon in haysta adduunka dabu yaalay kariimkaaba bari irsiqu ka alla weeyaan kawdii habeenimo alle uunku kala saxday kala oradka iyo qaylada kor u dhawaaqaysa ee koomadu ugu jirtay alle ka baraado ee u keenaysan tahay waa karaahiyo war waa Cristiano Ronaldo oo kuba buu qarinay meeshiguna xaquu kaaga yimi oo isagoo kale war miyuu ku dhigmaa islaam kaamilaan hayban kaasaan isaguna aan raaciyay oo gabay runtii isaguna aad u cajiiba oo dhalinyaradiiba waxa kaaga daraaday kuwii waaweynaa waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan maxamed xuseen jaamac xikmaawi oo waraysigaas suuganeed aan la yeeshay toddobaadkanna intaas ayaan barnaamijka ku soo afmeerayaa waana anigoo mawlid maxamed dawaaya iyo dhammaanba bahweynta qalinsoor oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabad gelyo